wafdigii madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Maxamed Cali Cabdi oo baryahanba howlaha nabadeynta iyo qaramaynta u joogay gobolkaasi Sanaag ayaa maanta magaaladaasi Ceelaf Weyn waxay ku qarameeyeen dufcadii afraad ee ciidamada madaniga ah gaar ahaan jiida degmadaasi Ceelaf Weyn waxaana munaasabad ballaaran oo qaramaynta ciidamadaasi ka soo qayb galay wasiiro mas'uuliyiin maamulka gobolka salaadiin cuqaal aqoon-yahano maamulka gobolka iyo degmadaasi Ceelaf Weyn ugu horeyn waxaa munaasabadii qaramaynta halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beeshani maanta ciidanka madaniga qaramay beesha Maxamed Saad markaan soo koobo beesha Maxamed Saad oo maanta wareejinayna gaadiidkii aanu haynay oo ahaa tignikada oo 14 tignika iyo gaadiid kale oo daba socda oo ah gaadiidkii waaweynaa ee ciidanka gaadiidka ku lamaana haddii la doonayo deegaanka wanaagiisa iyo horumarkiisa iyo deganaanshihiisa waxaan leeyahay annagu waa soo diyaar garowno maanta intaaba diyaar baanu u nahay walaalaha iyaga kale ee xoogaa dhibtuna dhex martayna waxaan leenahay war ilaahay inaan u noqonno oo sida aan u soo diyaar garowno idinna u soo diyaar garoobo aan gacmo isqabsanno madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ay kaga duwan tahay dawladihii hore oo aad u danaynayso waxaan leenahay tan laftigeeda qaramaynta ciidamada madaniga oo la qaramaynayo horumarkay ka mid tahay ilaa waxaan mar walba ku celcelinaa horumar baanu u baahannahay kow waa qayb mar haddii ciidamadii madaniga laynoo qarameeyey oo ay noqdeen ciidan la xuquuqa ciidanka qaranka horumarkii bay kow ka tahay wixii kale inoo raacana waxaan leenahay waa ilaahay mahadii kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta maamulka gobolkaasi Sanaag aqoon-yahan iyo waxgarad kale weyn laba barnaamij baa ka socday barnaamijna waxaa barnaamijka ciidanka madaniga ee qaramaynta barnaamijna waxaa barnaamijkii nabadeynta arrintani waxa ay wax weyn ka tahay markaan reer Ceelaf Weynahay nabadda laftarkeeda ay wax weyn ka taraysaa mudan madaxweyne arrintaas dadaalka badan aad gelisay iyo joogitaanka aad halkan noo joogteen ee noo dib jirteen waa idinka mahad celinaynaa haddaan reer Ceelaf Weynahay mudane madaxweyne waxaa halkan ku diyaara maanta adiga wasiirradaaduba waxaanu halkan maanta ku wareejinaynaa dafcaddii labaad ee ciidanka madaniga ah ee beesha Sacad Yoonis inta halkan joogta intii horena waataynu wareejinay inta dambena qoladii Maxamed Saad Tarays weeyaan dhammaan waa la isku dhan yahay runtii gobol Sanaag ahaan waxay noo tahay maalin qiimo leh oo ku suntanaan doonta taariikhda gobolka Sanaag iyo guud ahaan jamhuuriyadda Somalilandba mudane madaxweyne ku-xigeen waxaa ilaahay mahadiya maanta halgan aynu ku soo jirnay in ku dhow 2 bilood inuu gobolka Sanaag aan maanta wareejinayno ciidankii ugu dambeeyey ee madani ah oo hubkoodii iyo ciidankoodii oo isu dhammaystiran aad maanta la wareegayso haddii alla idmo oo nabaddii iyo ciidamadiiba maxay hayday qaramaynaysaa oo aynu odhan karno waxa aynu yagleelay amba aynu seeska u dhignay nabaddii gobolka Sanaag oo dhan maanta aad baan u faraxsanahay marka aan dhowr jaho ka eego farxadayda degmada Ceelaf Weyn in badan baa noo duceeyay way raagtay laakiin waxaan ogaanay in ducadii Soomaaliland noo duceysay nagu dhacday isbedel doonkii ayaa Ceelaf Weyn lagaga dhawaaqay nabadgelyadii Ceelaf Weyn oo ku duceeyay ayaa maanta halkan ku soo gabagabowday oo gacanta ku jirta maanta degmadan waa degmo muddo badan ku suntanayd dagaal iyo rabshad laakiin waxa yimi ummad fara badan oo noo duceysay waa aragtaan maanta iyadoo madaxweyne ku-xigeenkiina la joogo wasiiradiina la joogaan cid walba inoo la joogto sida nabaddii Ceelaf Weyn ay maanta u soo gabagabowday xukuumadda dawladda waxaanu ka codsanaynaa gobolkani 10 sannadood iyo wax ka badan waddo wadhac ku jiray bal in xoogga la saaro madaxweyne ku-xigeenku weyna la joogaan wasaaraduna way joogaan xaggii horumarka bulshada dhakhaatiirtii iyo biyogelintii xaggii leydhka
dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada waxaasoo dhan dib u dhac baa ku yimi sababtuna waa colaadaha mar haddii la soo gebagabeeyo colaadihii waxaan jecel lahay wax badan oo galbeedka horumar loogu samayn jiray dee imika way dhaaftay meel laga guray waa iska yar baan u malaynayaa bal xaggan in loo soo weeciyo ayaan xukuumadda ka codsanaynaa nabadgelyadu maanta waa naga dhab arrintaa waxaa caddayn u ah iyadoo aan weli nabadayntii la dhammaystirin iyadoo weli beeshii kale ee bahood ee maaragtay shaqaaqadu naga dhexaysay aanay waxba qaramayn waxaa beesha maxamed sacad ku dhiiratay iyadoo waxaa soo dhammi jiraan inay ku kalsoonaato nabadgelyada socota iyo dawladda ka shaqaynaysa waxaannuna qadinnay inaannu wixii aannu haynay dhammaantood aannu qaramayno guddidii waayeelka ahayd ee muddada 10 casho ah daba joogtay ciidankan waxaa kaloo aad ugu mahadnaqaynaa guddidii tawfiiq ee uu hogaaminayay boqor maxamuud axmed liibaan waxaa iyaguna hadalka qaatay oo halkaasi ka hadlay wafdigii xukuumadda somalilan uu horkacayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan maxamed cali cabdi axmed ganacsade cabdirasaaq miishaarta oo aan anagu saaxiib nahay oo runtii maalmihii ugu dambeeyey ee aan soolka u gelgelanaynay kulaylka iyo haraadka gacan weyn ka geystay qaramaynta ciidamadan waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan oo runtii duruuf adag u soo maray samirna nagu siiyey wakhti inuu halkan u fadhiyo in ciidamadan la qarameeyo taliyaha ciidanka qaranka isna u mahad celinayaa si gaara saaxiibkay nimcaan waxaan doonayaa inaan 3 qodob tilmaamo mid waxaan leeyahay ciidamada la qarameeyey ee maanta qaranka noqday midna waxaan leeyahay shacab weynaha degmada ceelaf weyn ee ugu horeeyaan haweenku midna waxaan leeyahay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee aan anigu ka mid ahay ciidamada la qarameeyey waxaan leeyahay maanta laga bilaabo waxaad tihiin ciidan qaran waxaad la xaq iyo xuquuq tihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaad si qarannimo ku jirto u difaaci doontaan calanka jamhuuriyadda somalilan insha allah ilaahay waxaan idinka rajaynayaa mustaqbal ifaya waxaan ilaahay idinka rajaynayaa maanta maalin ka duwan idinkoo saraakiil garbacasa inaynu halkaas maanta aniga way farxad way guul aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa xuqaasha boqorka saraakiisha ciidamada ee dhammaantood u guntaday inay ka shaqeeyaan sidii hubkaa maanta loo wareejin lahaa ee aan ku jirin ficiltankuna aanu gelin ee aanay ku xidhin ee odhan beeshii kale aanu saynay ha wareejiso maanta waxay dareenkayga farxadda ka mid ah weli maannu arag dawlad miisaankaa leh oo ciidan leh oo saraakiil leh oo sidaa noo dhex joogta waa ilaahay mahaddii waxaan xusuustaa iyadoo xabbadda laysla dhacayo ayaannu la hadallay madaxweynihii hore wallaahi waa noo jawaabi waayeen beel kasta oo qaramayntaa ka shaqaysay oo hubkoodii iyo ciidankoodii iyo waxoodiiba qaramaysay gaar ahaan si gaara maanta waxaan u ammaanayaa oo ugu mahad celinayaa beesha maxamed sacad oo ay halka maanta guurtidoodii joogto fursaddaasi waxa weeyaan wax alla wixii nabadayn jirtay 2 fursadood aanay helin bay maanta heshay oo furana waa ta koobaad waxa weeye nabaddii oo maanta la guntayo iyo maanta beelihii isdilayey ee duruuftu keentay oo maanta dadkii nabadda furaha u ahaa oo ahaa ciidamadii gacanta ku hayay marka waayeelka laga yimaado oo waayeelkoogii la qaatay inay nabadda qaataan ciidamadiina qarameeyaan isna qarameeyaan mudane madaxweyne waannu kuu ducaynaynaa ilaahay baannu kuu weyddiinaynaa inuu cimriga iyo caafimaadkaba kuu barakeeyo 2 bilood oo cir alle ka dhashay ayaad magaalada ceergaabo iyo degmada ceelaf weynba joogtaa ardaagan maxamed sacad ee darays oo abtiyada oo ciidiga xigta maanta aanay halkan joogin iyagana farxad bay tahay inay wareejiyaan surad lama garaacay rag baa helay galaaskii surad lama garaacay rag baa helay galaaskii anigana farxad gaara maadaama aan ahay wasiir deegaankiya
farxad gaara bay ii tahay wax badan oo gobonnimo aan ku ogaa reerka ah oo aan doonayey wax badan baa laga yaabaa inaanu isnidhi maanta farxaddeedii iyo gobonnimadii iyo sharaftiiba ay soo ururtay waxa kaliya oonu ballan qaadaynaa waxa weeye waynu ognahay waynu la soconnaa degmadan iyo ereyadani dhibaatooyinka ay muddooyinkii 9 sannadood ahayd ay la dariska ahayd duruufaha ay Soomaaliland inteeda kale kaga duwan tahay insha Allahu tacaala qaramayntu markay noo dhammaato waxaynu qorshayn doonaa sidii ay iyagu ay maartay iyagana arrimahooda dib loogu eegi lahaa arrimaha bulshada ee ay ka dayacan muddadaasi 10 sannadood ay dib dhaca kaga jireen insha Allah sidii loo dardargelin lahaa wax looga qaban lahaa iyagana insha Allah wixii tala ay hayaan way isweydaarsan doonaa inkastoo ay tahay munaasabad taariikhiya oo saameynteeda iyo xusuusteeda mudan ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa ilaahay inoo guntay inaynu go'aankan qaadanno geesinimada leh ee ah inaynu gaadiidkii iyo hubkii aynu wadannay iyo ciidankeennii aynu innagu gudaheenna isu samaysannay aynu iska xarayno oo aynu garanno inaynu go'aankaa qaadanno waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waa garasho ilaahay bixiyo waa deeq ilaahay hubkan la wareejiyey iyo ciidankan la wareejiyey waa ciidan muddo hore samaysmay oo ku samaysmay talaxumo ka timiday inta ku nool qayb ka mida degmada Ceelaf Weyn waayo ma samaysmay haddii tala fiican timaado waa hubkii loo samaystay in lagu dilo seedi in lagu dilo sodog in lagu dilo abti in lagu dilo inaabti hub aad u khariban buu ahaa ilaahay baa mahadle hadduu maanta soo gabagaboobay reerka soo dhiibayna ee arrintaa dhinacooga ka soo afjarayna aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa guddida nabadaynta ee Ceelaf Weyn joogta waxaan leeyahay annagu waa u adkaysananahay adkaysta hadday inagu raagta ka tegi mayna ilaa nabadda Ceelaf Weyna ay halkii ku soo noqoto ay ka dhaqaaqday waa goor miishaarta oo magaciisa Cabdiqaadir Cabdisaaq baa la yidhaahdee isnaguna aad u dadaalay maalmihii adkaa ee hubkan iyo qaramayntan la rabay in la sameeyo oo dadka aad ugu taageeray cid walbana ka qayb qaadanayay sidii u boorin lahaa dhammaantiin waxaan ka rajaynaynaa inaynu gacanta isqabsanno oo aan sida boodhkaa ku qoran qabiilkii guurno oo aynu qarannimo u guurno ilaahay waxaan ka rajaynaynaa markay tan inoo dhammaato safarkayga dambe inaannu la nimaadno wixii mashaariic aannu u sidno Ceelaf Weyn iyadoo nabada laagiin dadweynaha Ceelaf Weyn inta halkan joogtay iyo inta kaleba waxaan leeyahay war gamaha isqabsada oo nabadda ilaaliya nabadaan wax ku nahay nabad iyo cilmi warbaahinta qaranka Soomaaliland Ceelaf Weyn